siyaasiyiintii qaybaha kala duwan ee bulshada ku sugan magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa aragtidooda kala duwan waxay ka dhiibteen dhismaha maamulka cusub ee Hirshabelle. Ibraahim Cali Nuur ayaa sheekadan Jowhar ka soo diray. magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle maalin waliba waxaa soo gaaraya wafuud kala duwan kuwaas oo isugu jira kuwa doonayo in ay ka mid noqdaan xubnaha baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle iyo kuwa ayaga doonaya dad ehel ama asxaab la ah in ay u ololeeyaan oo ay rabaan in ay ku soo baxaan baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle. waxaa magaalada Jowhar ka socda qabanqaabadii ugu dambeysay ee soo xulista xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle. musharaxiinta doonaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka ayaa waxay xusul duub adag ugu jiraan sidii ay ugu soo bixi lahaayeen liiska xildhibaannimo ee maamulka Hirshabelle. sidoo kale doorashada Hirshabelle waxaa ku lifaaqan doorashada dowladda federaalka Soomaaliya tan madaxtinimo iyo mid xildhibaannimoba maadaama siyaasiyiinta doonaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka 11aad ee golaha shacabka Soomaaliya dagaal adag ay ugu jiraan sidii kursiga xildhibaannimo ee baarlamaanka Hirshabelle uu ugu soo bixi lahaa shakhsiga u arkaan in uusan saameyn ku yeelan xildhibaannimadooda maadaama nidaamka awood qaybsiga beelaha ay wax ku wadaagaan. qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo bulshada ku sugan magaalada Jowhar ayaa TV-ga Universal ugu waramay aragtidooda ku aadan sida ay la tahay jawiga doorashada maamulka Hirshabelle. doorashada hadda Hirshabelle ka socoto waxa ay ka adag tahay doorashadii 4 sano ka hor halkan ka dhacday ama tii federaalka lagu doortay xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle u matalo maxaa yeelay hadda waxay noqotay mid aad iyo aad u adag xildhibaanada oo beelaha u matalayo marka hore si fudud ay ku soo galeen baarlamaanka laakiin hadda marka aad fiiriso jawi ahaan ama muuqaal ahaan qof walba wuxuu daneynayaa inuu ka mid noqdo xildhibaanada labaad ee baarlamaanka Hirshabelle. magacayga waa Umar Cali Maxamuud Hirshabelle waxaa ka socota doorasho jawiga waa degan yahay amnigu waa sugan yahay magaalada ma sha Allah jawi wanaagsan ay ku jirtaa ficlan doorashaduna waa wax loo baahan yahay in 4 sanaba ay mar doorasho dhacdo si fiican ayna hadda u socotaa waxa aan rajeynayno waa in la helaa Hirshabelle mid ah. marka hore haddaan ku bilaabo aragtideeda ku aadan doorashada Hirshabelle waxay ku socotaa hab degan oo laga fiirsanayo si fiican looga fiirsanayo sidii loo gaari lahaa horumar ay u noqon sidii tii hore ee dhacdo kale si degdeg marka waxaan u arkaa in si sax u socoto. magacayga waa Rashid Xasan qurbijoog ah marka haddii aan cabiro aragtidayda Hirshabelle maanta la dhisayo horta run ahaantii haddii wax yartii hore aan ka taabto tii hore caqabad badan baa jiray marka aragtid dhinaca maaragtay horumarka wax badan xogaa caqabad baa jirtay laakiin waxaan rabnaa midaan hadda cusub aan u nimid in laga qayb geliyo bulshada rayidka aqoon-yahaniinta haddii la ku roon yahay maaragtay iyo odayaal dhaqameedyada dhammaan waxaa loo baahan yahay gacmo wadajir ay wax ku qabtaan sideedaba marka waxaan rabnaa Hirshabelle cusub in tii hore la soo dhaafay ay ka duwnaato anagoo isku duuban anagoo maaragtay meel walba iskaga nimid inaan maaragtay aan u shaqeyno deegaanka iyo dadka. Ibraahim Cali Nuur TV-ga Universal Jowhar.